ولا ليال وحين مانت إن شاء الله تعالى استلتاق الدونا متكمدة دردارا ندى النبي عليه الصلاة والسلام دردارا آذو عجيبة والنبي عليه الصلاة والسلام ينوت المامايو أين تلمام الدونا نبي عليه الصلاة والسلام وحاوت المامية haddii qofka laga helo 4 arrimood oo uu ku sugnaado 4 arrimood inaanay waxba ka dhimayn haddii adduunyada oo dhan ay ka tagto faqala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabigu xulay alayhi salatu wassalam 4 idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya 4 haddii ay kugu sugan yihiin ood ku suntan tahay ood ku tilmaaman tahay waxba kaama galin amba waxba ka dhibi mayso ma faataka min ad-dunya wixii adduunyada ka tago oo dhan haddaad 4 tilmaamood aad ku tilmaaman tahay xutaam ad-dunya adduunyadan iyo burburkeeda iyo dhalaalkeedu hadduu ka tago waxba ka dhibi mayso li'annahu qofkaasi waxa uu gaadhay as-saada al-haqiqiyya liibanta dhabta 4 arrimood waa maxay nabigu xulay alayhi salatu wassalam حفظ أمانة إنه قفك النقض قف أمانة حفظية وإلالية وصدق حديث يقفك مركو وركش وشيغايو رنك شيغور اللوء وحسن خليقة يقف رقا يطبيع ذي أخلاق ونكسن إنه قفك النقض وعفة في طعمة يوحى قفك قودنايو إنه قفك النورسن النقض وعفيف وحويان حلال قودنايو نبي عليه الصلاة والسلام أفرتها الريموت قفكي كسوغن تهيبو تلماميا إناني وحبا كدمين هديد اللالك الدنيا أورناني أي كتكتب النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام تردارنك كواد ولا ليال نبي حلي حفظ أمانة وإن أمانة ذل إلاليو أو قفك النقض قف أمين أو أمانة إلالية إنو قفك النقض أمانة كليا ما حوله يقفك هنتي لغو آمينه أو لا يرهضي إلالي أمانة ويكقد بلاران تهي وحوال بوا أي كوبسا بل وحا أي كوب سنيسا وحكستو ابن آدم كعبا الضون كاللغو يري إلالي حبا هنقض حق إلهي سبحانه وتعالى وكقول ليهي أنبا حق يتعامل إذن كالحية ابن آدم كهنقضه qofku waa inuu isweydiiyaa sideeban aamin u noqon karaa hadda aamin ma ahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa si wanaagsan ma u gudanaya wuxuu ilaahay igu aaminay oo salaadu kow ka tahay si fiican ma u ilaaliyo ma uga soo baxay aamin ma ahay waqtigayga oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay aamin ma ku ahayo ma ilaalinaya ma ku ahay gurigayga iyo ahalkayga iyo usradayda iyo dhammaan tacaamulkan ummadda la tacaamulayo iyo waxa igu aamineen qof si fiican u ilaalinaya ma ahay waa inuu qofku isweydiiyaa walaalayaal amaanadu aad iyo aad bay u culus tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu tilmaamaya in amaanada cirka iyo dhulka iyo loo bandhigay oo ay dhammaan ay ka cudur daarteen iyo buurihiiba markaas rabbuna subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وحانو نبي الله سبحانه وتعالى أمانذي إني حنباران وحانو نسموينكي يا أرلذي يبوره وأيديذي وأي كبقين إني أمانذا أي حنباران عليس كي لا ضحي درتين ابن آدم كيبا حنباري ابن آدم كوا مدو قرشدي سؤالي ذا ظالم وظلمي سوء فربنا يهبي الله إليه سبحانه وتعالى أمانة إنها ثقيلة ومدعو لصولا ليال
نبينا وحلي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له قف كان أن أمانة لهين وأن آمن أهين إيمان ملهب النبي عليه الصلاة والسلام ولا دين لمن لا عهد له قف كان عهدي يبلن أن لهين وأن بلن كإلالين دين ملهب النبي عليه الصلاة والسلام كإن لا إلالي أمانة وحيدتك اللغو لما إن لو قدو ومد كمد الصفات كمؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وكو أماني والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صفات كدتك مؤمنين لغو يقانا وحا كمد وكو وحي لغو آمني يبلن كي قلينبا إلالينا يحفظنا يبي إلهي سبحانه وتعالى taas waxay ka soo horjeedaa calaamada munaafiqa waxa lagu yaqaanaa inuu khaa'in uu yahay wa idha tumina khaan bu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam tilmaamaha munaafiqa lagu yaqaana waxa kamid marka wax lagu aamino ambal amaana loo dhiibo waa uu khiyaameynaya sida daraadad walaalayaal amaanada waa in la ilaaliyaa amba xoolo lagu dhiibay ha noqoto amba sir lagu aaminay ha noqoto amba xaq ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ilaaliyo ku yiri ilaali ha noqoto amba waxa weeye hadad qof shaqaale tahay meeshaad ka shaqeynaysid inaad ilaalisid wixii lagu la ballamay intuba waa nooc kamid ah amaanada balaynu fiirsano Umar ibn Abdul Aziz wa khaliifkii muslimiinta wuxuu ahaa nin aad iyo aad u caadil nin aad iyo aad waxa weeyaan u ilaaliya hantida ummadda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu mas'uuliyadda uu saaray mas'uul uga dhigay cadaaladiisu dhulka oo dhan bay buuxisay ilaa waxa weeyaan xilligiisii zakada cid qaadataba la waayay waxa uu qisadiisana ay tilmaamaysaa waxa laga soo wariyaa in loo shidi jiray marka arrimaha uu muslimiinta uu ka waramayo faynuus yar ayaa loo shidi jiray oo baytul maal muslimiin kamid si arrimahooda uu uga waxa weeyaan uga waramo oo marka habeenkii loo yimaado ee arrimaha muslimiinta uu ka waramayo faynuus laga bixiyay baytul maalka muslimiinta ayuu waxa weeyaan uu shidan jiray marka uu arrimaha muslimiinta uu dhameeyo ee uu soo gabagabeeyo ee arrimihiisa gaarka uu waxa weeyaan amba ehelkiisa la shawraayo amba arrimihiisa gaarka uu ka waramayo faynuuska waa uu iska baqtiin jiray shamaca uu shidanayo waa uu baqtiin jiray markaas uu oran jiray anigu baytul maal muslimiinta arrimahayga gaarka u adeegsan maayo markaas waxa uu soo shidan jiray faynuus yar oo hantidiisa gaarka uu ka bixiyo inaguna maanta waxaaba lagu faanaa inuu qofku inta xoolo uu qaatay inta guriye uu ka dhistay inta hantiye u dhacay ayaa uu ku faanaya khaliifkii muslimiintuna faynuus buu naftiisa uu ku aamini waayo yiri amaanan haya muslimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala iigu dhiibo mas'uul iga dhigay hantidoodan u ilaalinaya markan dantooda u wadana waa ka isticmaali kara dantayda gaarkana kama isticmaalayo innaha al-amaana wa amaanada walaalayaal innagana imisa shaqo ayaa la dayacay imisa amaana iyo hantidii muslimiinta iyo hantidii waxa weeye caamka ahayd ee ummaddu ay lahayd ayaa inaga dayacantay walaalayaal salafuna saalix dadkii wanaagsanaa waxa ay waxa weeyaan dirhamka hatta hadii uu shaki galo amba shubhadu uu galo oo uu ka shakiyo ma xalaal ba mise waa xaraan uu iskaga tagi jiray gaajada ayuu ka doorbidan jiray waayo iyagu siday waxa weeye faqriga inuga baqana inagu ayaa iyaguna waxa weeyaan ciqaabta ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baqan jireen dadka qaar baa imaka waxa laga yaabaa hadii la yiraahdo hantida ummadda maxaad u qaadanaysaa inuu iraahdo wax weeye dadkuba soo ka isticmaalaya dadkuba soo kuwa qaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku markuu hortago ee la weydiiyo xoolihii halkeed ku bixisay halkeed ka kasbatay waa su'aalaha la isweydiinayo maalinta qiyaamaha
ilaahay hortiisa qofka miyay ka saaraysaa dadkuba way xadi jireen anna waan xadaya dadkuba way qaadan jireen anna waan qaatay miyay ka saaraysaa maya wallahi ka saari mayso marka waxa la gudboon qofku inuu hadda xisaabtamo amaanada uu hayo amba hanti guuda muslimiinta ha noqoto amba hanti gaaro lagu dhiibay ha noqotee inuu qofku ilaaliyo waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka muslimka tilmaamihiisa ay tahay walaalayaal salaada aynu tukanayna waa amaano ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu inagu aaminay inaynu waqtigeeda tukanno sidoo ilaahay inooga waxa weeye aqbalay inaynu u tukanno oo hay'adeeda iyo khushuucdeeda iyo arkaanteeda intaba inaynu ilaalino ma ilaalina salaada waqtigeeda waqtiga hay'adeeda arkaanteeda ma ilaalina shuruudeena naga rabto ma ilaalina mise waxa weeyaan kolba xaaladaynu la tasarrufnaa oo hadaynu meel ku jirno waxa laga yaabaa salaada waqtigeeda inaynu dhaafino oo hadhow markaynu waqti hawlaheena soo dhameysano aynu tukanno ma sidaas xaaladaynu qofku waa inuu xisaabtama marka uu shaqo uu ku jiro amba shaqadaas shaqo gaar ah noqoto amba shaqadaas shaqo caam ah noqotee ma ilaalina shaqadeena ma ka soo baxna waxa lagu ballamay inaad waqtiga ilaalisid 8 saacadood hadii lagu ballamay intii lagu ballamay waajib ayay kugu tahay waa amaana aad ilaalinaysa ma ilaalina si uu waxa weeye waxa yara aad ka qaadanaysid xalaal uu kugu noqdo mise waxa weeyaan intaad printerka fingerprinterka aad saartid ayaad ka dhuumataa oo aad tiraahdaa waxa weeye marar badan waxa laga yaabaa qofku inuu shaqo u baahdo meeshuu shaqada uga baahna shaqaalihiiba uu waayo wasaaradihii uu waayo oo iraada xaqay qabteen waa amaano shaqada waxa weeye lagu dhiibay inaad waqtigeeda iyo waxa weeyaan aad ilaalisid si waxa aad uga qaadanaysay ay noqdaan wax xalaal ah hantida lagu dhiibay walaalayaal waa nooca saddexaad iyaduna amaanada ah wixii lagu dhiibay ee hanti ah inaadan ku xeeladaysan inaadan cunin inaadan dayicin ee waa inaad ilaalisaa oo waxa weeyaan aadan noqon khaa'inkuna waligii ma aflaxo sida daraadeed inaanu qofku hanti xalaal ah xaraam ah inaanu quudan awlaadiisana aanu siin ee waxa uu kasbanaya wax xalaal ah inay noqdaan ba looga waxa kala afraad oo amaanada kamid ah inuu qofku sir marka lagu dhiibo sirta majaalista in la ilaaliyo hadii qof uu kugu dhiibo inaadan meelaha kaga sheekayn amba cid kale aadan u gudbin wixii lagu aaminay sirta ah waa inaad ilaalisaa asxaabti rasuulka kaleey salaatu wasalaam hatta kuwada yar yar ayaa ilaalin jiray sirta markaas markay hooyadood weydiiso waa sir nabigu uu sheego ma faafinayo ay oran jiray saas loo baahan yahay dhaqanka wanaagsan ima kan wixii guryaha ka dhacayo oo dhan imisa reerood baa isfuray waayo sirtiiba la faafiyay imisa waxa weeyaan ayaynu dad baa isku dhacay waayo sirtiiba la faafiyay sirtu waa amaano iyaduna ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka rabo inaad ilaalisid marka nooc kasto amaanada ah qofka muslimka waxa laga doonayaa waa inuu ilaaliyo oo uu xifdiyo hadii kala khaa'in munaafiq ayaa uu noqonaya tilmaamihiisa ayaa uu yeelanaya walaalayaal amaanadu way culus tahay laakiin ilaalinteeda janno ayaa lagu helayaa sida uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qodobka labaad amba dardaaranka labaad ee nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu la dardaarmayo waa sidqu xadiis waa inaynu warka markaynu sheegayno inaynu run ku sheegno sidoo warku yahay inaynu u sheegno inaynu waxa sidqu xadiis runtu waxay ka soo horjeedaa waa beenta hadii kala qofku beenaale ayaa uu noqonaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagula dardaarmaya inaynu runta ku dadaalno calaykum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wama yazaalu arrajulu yasduqu hatta yuktaba inda allahi siddiqa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam runta ku dadaala haddaad runta ku dadaashaan runtu waxay idinku hagaysaa birka iyo samafalka iyo khayrka oo dhan ay runtu idinku hagaysaa waqofkuna ka zuuli maayo nabigu leeyahay salaatu wasalaam deyn maayo inuu runta ku dadaalo oo runta uu sheego oo mar walba uu runta uu sheego ilaa ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa laga qoro run badane haddaad runta ku dadaashid ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa waxa laga qoraya qofkii run badan ahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal aad buu inagula dardaarmaya inaynu runta sheegno maca dadka
run sheegayaashana inaynu la jirno macooda aynu noqonno markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu ittaqullaha wa kunu ma'as saadiqin kuwa ilaahay rumeeyo ilaahay ka cabsada kuwa run sheegayaashana macooda noqda aayadaas waxay timid saddexdii nabiga ka haray calayhi salaatu wasalaam saddexdii saxaabi ee ghazwadii tabuk nabiga ka haray calayhi salaatu wasalaam markii la go'doomiyay ee muddo aan lala hadal ayaa nin walba waxa uu sheegay sidii ay wax u dhaceen runta ah ayuu sheegay xagga munaafiqiintu ay been dhoodhoobayeen kadibna ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kii markii dambe aayad soo dajiyay in loo dambi dhaafay in waxa weeyaan ay guuleysteen markaas ilaahay wuxuu leeyahay runta ku dadaala sida ay saxaabadaas runta ugu dadaalayeen runta ku dadaala kuwa run sheegayaasha macooda noqda walaalayaal beentu wax aad u liita waa wax imakana mar badan faafay barihi bulshada lagu faafinaya been si uu dadka uga qosliyo sidoo uu helo waxa way cid daawata waxa laga yaabaa si uu dadka u raali gariyo amba khalad uu sameeyo si uu u qariyo amba badeecad uu qofku lahaa si uu u iibgeeyo ayaa been la sheegaya beentu wax caadiya maaha waa wax naar lagu mutaysanayo nabigu sidoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam beenta iska ilaaliya waayo beentu xumaan oo dhan bay ku horseedaysaa xumaantaasina naar bay ku horseedaysaa qofkuna beenta kuma dadaalo ilaa ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa laga qoro beenaale in laga qoro bal ilaahay agtiisa hadii beenaale laga qoro xaaladaadu sidee noqonaysaa waa qof naar uun mutaysanaya ama naar uun u shaqaysanaya nabiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minkii been ma sheego iimaanka iyo beentu meel kuma midoobaan ayuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nabiga waxa la weydiiyay mu'minku bakhayl ma noqon kara haab nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam mu'minku fulay ma noqon kara haab nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam mu'minku beenaala ma noqon kara maya buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam mu'minku beenaala ma noqdo beenta iyo iimaanku meelna ma wada galayaan walaalayaal inuu qofku isweydiiyo xataa markuu kaftamaayo waa inaanu ku kaftamin been inaanu ku kaftamin si uu dadka uga qosliyo laakiin sida runta nabigu uu kaftami jiray wala yaqulu illa sidqa run uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku kaftami jiray anbiyada ilaahay nabi ilaahay subhanahu wa ta'ala marar badan wuxuu ku amaana runta ay sheegayaan runtu waa sifadadka wanaagsan ee anbiyaduna hormoodka ku yihiin nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayo ilaahay ka waramay wadkur في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا مذآذ الرنبضا أي نبي إبراهيم هاو نبي أي إله إليه سبحانه وتعالى نبي الله إسماعيل إلهي وحكت المامية إن واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وحوها مد بلنك قال كالرشيغا أو رنبضانا أو بلنك وقال أوفيا أو رنتك شيغا وهب الله سبحانه وتعالى أوليه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا نبي إدريس بالله إليه وحوها مذآذ الرنبضنا حتى نبي الله يوسف عليه السلام وكاي كتل ماما يساحيبك مركو ويدين إنك جلك كل جري مركو حسوستين مدة كدب يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان وحلية أمد كاغن رنبضنا نبي يوسف صاحب كاغن رنبضنا إيغا ورن تضبضا ساعة وحوية شلشلسة تضبضا كله وحوية العجاف أمبا ويد هاي عنيان وقصة مركو ويدين الرياضي ونكي بقرك وكل رياضي ولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام تا إسقا إنه هرمود إيغا قرشي أي بينين يان وآني الرسالة دي سيقاضا أي أكتو waxa ay qalin waayeen inuu run badan ahaa waxa uu ku tilmaanaa as-saadiqul amiin ka runta badan ee aaminka ah ayuu nabigu agtooda ku tilmaanaa calayhi salaatu wasalaam markaasay oran jiray ma jarramna calayka illa sidqa run mooyaane wax kale kaamaanaanu arag bay oran jireen waxay u qireen runta uu leeyahay waayo nabigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam mid aad u run badan ah bal
نبي عليه الصلاة والسلام مركو حكا ورمي أبي سفيان مركي هرقرا ولا كل مي ويدي ملك الروم ويديني محاد كأركتي يا راعة يا عد الرعدة ولا مدة سؤال بدن ويدي وحط المامي وحيابه فريين ويهي إن وحي ورنا وكرر الشيء وحيابه وفريين أي كم ذا صدقك يطور صنانته يوناك إنه فريين مركا وحين لقد من ولا ليال إنه رن شيغنا رنتا إنه شيغنا وصفات كمؤمنين إليهن بينتنا وصفة منافق إليه سيد النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام صفات كمنافقين توحى كمد إذا حدث كذب مركا والرمايو بين بكو والرما بينتو وتلمام منافق إليه رنتنا وتلمام مؤمن إليه وحل الدنيا إنه رنتا كد ذانلو تاسينو جنة كجلنا تاسو قفكو قيم كيسة يهب دقن كيسة نوين بين باشكتا إن لا يراهضو runtii aad iyo aad bay u liidataa marka inuu haduu qofku siyaasi yahay haduu sheekh uu yahay haduu oday dhaqameed uu yahay haduu yar yahay iyo haduu weyn yahay gabadh iyo haweenku yahayba runta in lagu dadaalo runtu waa wax diiniya ma aha wuxuu qofku samaysan karo iska oran karo waxa way markuu doonana runta inuu sheego markuu doonana inuu beenta uu sheego si uu dadka u qanciyo saasi sax maaha laakiin ta saxda ah ee dariiqa jannada lagu mudanaya waa runta inuu qofku ku dadaalo bal ay salaf saalix waxay oran jireen runta dhabtihi waxa weeye meel aan waxa weeyaan qofku uu isleeyahay wad halaagsamaysa inuu runta uu sheego isagoo isleeyahay wallahi haddaad maanta runta sheegto waa lagu kala kacaya amba waxa weeye wad ku halaagsamaysa runta dhabtihi waa inuu qofku marka uu runta uu sheego marka inaynu runta ku dadaalno amaanada inaynu ku dadaalno waxay ka mid tahay afarta arrimood ee nabigu tilmaamay عليه الصلاة والسلام إن وحوي قفك وكبت بادايو حدي وإنت قبصدنا وحوي إنه وحا الدنك كتجا إن أنا وحبت لمين إن شاء الله تعالى خد بدينا الضمبة أي نصير ما يستردنا ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث قال رب العزة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربع وعن بقية الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم